dalka Soomaaliya ay ka dhacday isla markaana doorasho si weyn ee dadka Soomaaliya uga biyadiideen ay ka jirto habka iyo maamusyada la mareynay dhamaantood ay ahaayeen kuwo liita kadib markii ay awoodda isku gaar yeeleen hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa tan waxay wararku sheegayaan in ay u muuqato dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee dalka doorasho rasmi ah kaga dhici doonto uu bilowday kadib markii goorsi horeysay xildhibaanada badankooda u diyaar garoobeen isla markaana ay xaadireen inay dhaarta ka qayb galaan halka kuwa kalena iyaguna ay ku soo qulqulayaan magaalada caasimadda ee xarunta waa dalka Soomaaliya inta ayaa timid kadib markii la dhameeyay mid madowgii qaar ka mid ah arrimihii hortaagnaa taasoo dad badan ay u arkayeen in awalba ay ahayd xaalad abuur la siyaasadeeyay si kastaba ha noqotee goorsi horeysay ayaa xubno ka tirsan guddiga heer federaal fiid waxa ay tageen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas ay kula kulmeen qaar ka mid ah xubnaha siid ee deegaan doorashadooda maamulaha koonfur galbeed ee Soomaaliya arrintan ayaa imaanaysa iyadoo sidoo kalena ay jireen maalmihii ugu dambeeyay walaac xooggan oo laga qabay in Soomaalidu ay sameeyaan doonto doorasho iyadoo oo markan ay u muuqato in dadka Soomaaliyeed ay haatan ay u diyaar garoobayaan inay doortaan dawlad rasmi ah iyadoo oo dalka Soomaaliya uu horumaro iyo dib u dhacyo dhinac yaala labadaba uu qarka u saaran yahay arrinta ayaa walaac xooggan dadka Soomaaliyeed ku riday kadib markii dawladdu ay si weyn u kala jabtay isla markaana horumaradii waaweynaa ee dalka u gaaray sanadihii ugu dambeeyay ay galeen madmadow xooggan kolkii loo arkay inay dhaxda u fadhiisteen siyaasadda isdiidan haatanse waxay dadka Soomaaliyeed ay la naaloonayaan arrinta dabaaldega ciidamada qalabka sida oo iyaduna si weyn dadka Soomaaliyeed ay u muujiyeen yidiiro dad badan oo Soomaaliyeed ay soo jeedatay arrintaasi waxaana u muuqdaan bulshada Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala iyo kuwa kale ay aad uga hadlayeen saacadii ugu dambeeyay oo dhan bandhigyada ciidamada dadkan waxay isku raaceen haatan ay u muuqato in Soomaaliya jidka ku soo dhacday dhinaca dawladnimada iyo dib-u-dhiska qaran ee waddankaasi ka jira qodobada kale ee dawladda wararka calaamada dhinaca dunida caalamka ee dalka Indonesia ayaa isagana sharci lagu murmay ugu dambeyntii la meelmari kaasoo ay aad uga soo horjeedeen qaar ka mid ah dadka xildhibaanada ah laakiinse markii dambe ayaa ugu dambeyn aqalka loo yaqaano aqalka sare ee dalkaasi uu meelmariyay ama aqalka sharci dejinta ee dalka gudoomiyaha aqalka mafiyeenka baarlamaanka Puan Maharani ayaa waxa uu sheegay in uu baarlamaanku uu ansixiyay ugu dambeyntii sharciga ilaalinta xuquuqda dumarka gaar ahaan in la ciqaabo kuwa dumarka u geysta dhibaatooyinka sharciga ayaa lagu sifeeyay markaana looga dhigay ciwaan wixii loogu yeedhay baa la yidhi hadiyadii hablaha ama dumarka iyo haweenka reer Indonesia dalka Indonesia ayaa waxaa bariyo ugu dambeeyay dhan ka soo badanayay qalalaasaha dumarka ka dhana iyadoo la doonayo shuruuc aad u adag loo helo markay timaado gacan bir la iskaga qabto kuwa markaasi gabdhaha aan xadgudubka ku sameeya halka dadka qaarkood ay ku sheegeen in kastoo ay diinta islaamku mamnuucday in xadgudub lagu sameeyo gabdhaha muslimiinta iyo dunida oo dhan haddana waxay sheegeen in ay jirto kabadbadis far badan oo hay'adaha qaarkood ay dhexgeliyeen arrimo kale sida hadalka loo dhigay halkan dagala socotaan wararkii wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan gaanka gaandunida daawashada qiimaha leh trabeelka wararka wacala dhinaca dunida ayaan ku dhex jirnaa haatan aan fiirino ruushka ayaa si weyn u cambaareeyay hadaladii ugu dambeeyay ee ay ku tilmaameen inuu qadaf yahay ee ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden goorsi horeysay kaasoo ku tilmaamay inuu u arko in dambiyada iyo dagaalada ka soconaya dalka Ukraine ay yihiin dambiyo dagaal afayeenka aqalka Kremlin-ka ee dalkaasi Russia iyo Mr. Peskov ayaa waxa uu ku tilmaamay in dawladda Mareykanku aysan isbihin isla markaana aysan jileen u sameynin dunida isagoo ku eedeeyay in Mareykanku uu dhibaatooyinka ugu weyn ee dunidu la heetinayso hadeerto uu isagu u geystay waxaana uu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka oo mas'uul ka ah ayuu yiri dal baabi'iyay duniya badan dalal badan dambiyo dagaal ka geystay uusan cidna kula soo kufin arrintaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa goorsi horeysay wuxuu sheegay in kelmadda ama ereyga wuxuu isticmaalay genocide kaasoo uu sheegay in loo geystay dadka reer Ukraine ee iyagu dhibaatada xooggan ay ka wadaan wuxuuna sheegay in arrintaasi marka dambe soo cadaanayso isagoo ku adkaystay arrintaasi dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isaguna sheegay inuu qoonsan yahay inay u muuqato arrintaasi inay tahay waqtiga ugu habboon ee isticmaal laha kelmadda genocide waxa uu sheegay in war ereygaasi ama xasuuq uu yahay kan ugu habboon hadal meesha la gali karo laakiin waxa uu diiday inuu si toos ah u taageero hadalka Joe Biden waxa uu sheegay in marka ay noqoto arrimaha siyaasadda ay u baahan tahay arrimaha qaarkood inay sharciya noqoto dhinaca qaanuunka laga fiiriyo laakiinse meesha kama saarin aragtiisa ku aadan arrintaasi inay u muuqato in saas ay ku habboon tahay dadka iyo warbaahinta ayuu ugu baaqay inay isticmaalaan kelmadda genocide halka dagala socotaan wararkii wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida wararka ugu dambeeyay daawashada qiimaha leh trabeelka wararka wacala dhinaca dunida ee ugu dambeyntiina nin ay booliska magaalada Manhattan ee gobolka New York raadinayeen ayaa la soo qabtay kaasoo markaasi ka nixiyay dad badan argagaxna geliyay dad train saaran kadib markii uu dadka ku sii daayay qiiq dabadeedna uu rasaas ku furay 13 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi halka dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo oo markaasi arrintaas ay keentay kala car
booliiska ayaa goor sii horeysay waxay sheegeen in ay daneynayaan ruuxan haatan ay soo qabteen oo ay ku tilmaameen inuu ahaa qofkii ugu dhowaa ee loo tuhunsanaa inuu sameeyey isku day. Frank R James ayaa wajahaya dambiye argagixisanimo kadib markii uu khalkhal geliyay khadka tareenka ee magaalada weyn ee New York isku xidha, kaasoo u muuqda ayaa la yidhi mid markaasi uu ku argagax gelinayay dadka halkaasi ka qayb qaadanayay inay noqdaan safaro iyo gaadhaan meelaha qaarkood dabcan iyo dunida meelaha ay markaasi doonayaan inay tagaan. Hagaag halkaad dagala socotaan wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan aan fiirino dabashan qiimaha leh wararka dhinaca Ruushka mar walba soo badanaya maalmihii ugu dambeeyayna xaaladdu ay kasoo daraso boqolaal askari oo ka tirsan kuwa Ukraine ayaa markii ugu horeysay ay dowladda Russia sheegatay inay iska soo dhiibeen magaalada dekedda leh Mariupol halkaasoo ay dagaal aad u culus ka wadeen. Sida ay wararku sheegayaan ku dhawaad 200 oo askari ayaa soo dhiibay oo ka tirsan ciidanka qaybta unugga 36aad ee ciidanka loo yaqaano The Marine Brigade ee dalkaasi Ukraine, sida ay sheegayso wasaaradda gaashaandhigga Russia wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in arrintan ay timid kadib markii ciidamadaasi ay ku khasbanaadeen inay deegaanka degmada dekedda leh Azovstal gaar ahaan aagga bulshaduhuna ku badan yihiin sidoo kale dekedda ku taalo ay xiji waayeen duqeynta baan ee dowladda dalkaasi Russia halkaasi ka wado. Ruushku magaalada Mariupol waxay u tahay mid ka mid ah dhimasho iyo nolol ama nolol iyo geeri, waxayna doonayaan inay awoodoodan isugu geeyaan in Mariupol ay ka saaraan ciidamada dalka Ukraine. Russia ay ku absato si ay markaasi u xaqiijiyaan in bariga dalkaas oo ayagu ay ka taliyaan. Dowladda dalkaasi Russia ayaa waxay saacadii ugu dambeysay kordhisay duqeynta baan ee ku hayso dhinaca cirka iyo dhinaca sawaariikhda iyo waliba baabuurta gaashaamada ay ku soo garaacayso gaar ahaan artillery qaybta labaad.